daawadayaal halkaan naga daawanaysaan waa Universal TV qaybtiisa North America waa anigoo Sakariya aadan alaaba waxa daawataan barnaamijyadeena aan inaga soo gudubno halkaasi North America gaar ahaan magaalada Minnesota ee Minneapolis haddaba daawadayaal caawa waxaan ku soo qaadanaynaa barnaamijka fanka iyo suugaanta haddaba caaway yaad filaysaan yaad isleedihiin Sakariya uu wadaa waxaan wadaa fanaanad codkeeda la hoolin waaye fanaanad aad u daayar waa fanaanadee waa Nimco Dareen Nimco waxay booqasho ku timi North America haddana waxay joogtaa gobolka ay ku noolnahay Minnesota Nimco ku soo dhawow Universal TV Sakariya aad baad u mahadsantahay waan dhawahay haddaba waxaan rabay Nimco waxaa tahay fanaanad aad u daayar waxaa tahay fanaanad ay dadka Soomaalidu si aad u jecel yihiin marka Soomaalidu waxay tiraahdaa fanka qofba sibuu ku bilaabaa marka adigu fanka sideebaad ku bilaabay xageesaad ka bilaabay Sakariya horta tan ku sheego fanksaan ku bilaabay anu waxaan deganaa Scandinavia magaalada Helsinki wadanka Finland long time ago when ahayd xagaasaan fanka ku bilaabay fankiiguna koo wuxuu ka bilaabmay ajnabigan la heesi jiray koox Finlandeysa ka bacdina waxaan isku dayay inaan ku heeso luuqadeeda hooyo maantana waxaan happy ku ahay inaan fanaanad Soomaaliyeed ahay Nimco aad baa mahadsantahay mar haddaad tiri waxaan ku bilaabay luqad Finlandeysa oo Helsinki aad joogi jirtay marka heesaas aad qaadi jirtay niyaddu ma ku heysay inaad mar un u soo wareegto dhinaca Soomaaliga si fiican aad riyadeeda ahayd inaan mar un aan fanaanad Soomaaliyeed oo af Soomaali ku heesisa aan noqdo marka goormaad noqotay marka goormaa heesta kugu horeysay aad qaaday heestii iigu horeysay oo anigu aan lahaa waxaan qaaday 96kii heestaasi magaceed Dareen ay galay marka heestaas waa hees si aad dadka ay u jecel yihiin dadkuna ay alaaba ay weydiiyaan haddaan nahay North America ka bacdi marka fanka waxaa la yiraahdaa qofka markuu soo galayo siyaabo aad fara badan bikaas gabar baa tahay markaad heestii ugu horeysay aad qaaday nafs ahaantaada adigu maxaa dareentay markaas wallaahi koley heestii ugu horeysay anigu lahaado oon qaado dareen bay ahayd dee waxaan dareemina waxay ahayd dee inaan fanaanad Soomaaliyeed oo heesay leedahay qaadisa ahay marka ma Finland baa ku qaaday haa Finland baa ku qaaday heestaasi marka heestii kugu xigtay aad qaado maxay hees kale oo waxa weeye iyadana cusub oo aan anigu lahaa oo la yiraahdo nacaskii fariidkaba nacaskii fariidkaba maxaa macnaheedu waa aad hees waxaad u malaynaysaa waa loo yiri nacaskii fariidka kale waa hees jacayl ah iyo waana isku dhex jirta yaa heesta alifay heestas waxaa alifay wiil Cabdi Wahaab la yiraahdo oo Scandinavia ku nool laxanka iyo saar laxanka waxaa iska leh isla wiilkaasan erayada maxaa kamid ah nacaskii fariidkaba يعني هداد دونسون كوغلو قان كرا نعاسكي فريدكوبا متبني ذركي وقالي سيدو uguنا يا يري ما شاء الله horaan kugu sheegay waxa tahay fanaanad aad codkeeda loo jecel yahay haddaan u soo gudubno marka aad adigu ahaan markaad heesayso ma fil garaysaa heesaha aad qaadayso si weyn si fiican Nimco Dareen waxaa la yiraahdaa heesaha waxay u badan yihiin dhinaca jacaylka heesaha aad baan u dhageystaa dhinaca jacaylka ay u badan yihiin maxaa sababa is leedahay oo dhinaca jacaylka aad ugu leexatay walaa qof wuxuu jecel yahay dee qof jacayl nacab ma jirto jacaylku waa wax la wada jecel yahay loo baahan yahay heesta ugu horeysa ma aniga soo qabtay mise adiga soo qabanay ma adigu soo qabas kare heesta jacayl u soo qabtaa heesaha aad u fur badan yihiin maanta waxaan rabaa heesa aad u fur badan dadka inaan tuso laakiin waxaan rabaa heesaha kuwa ugu jecelahay iyo kuwa dadweynuhu aalaabana soo weydiiyeen markaas markaan North America timi aniga dad badan baa waxay yiraahdeen Nimco Dareen baa joogta Sakariya interview waana la yeelatiin Nimco Dareen marka heestee ma uga soo qabtaa waxaan u soo qabanayaa okay hees Ubad oo hees cusub waxa sameeyay awaanka dacda yar oo reer Ingiriiska reer London ah ALFA iyo Laxankii Mohamed Ahmed Qoomaal marka heesta Ubad waa hees cusub oo duca iyo jacayl isku dhex jirta maxaa kamid marka Ubad hadii la yiraahdo يعني أبد عن كودات هي أبد هاد هيسو واتن هيستي أبد إيوه
fanaanada la hoobin waaye waa fanaanadee waa Nimco Dareen waa kan daawasho wacan Inkastoo amaantiyo erayada kalgacal urugiya xanuun kaygu reebtay adiguna ogsoonaw ololkiisa cashaqa urkaiyo qalbiga afka kama dahayo inkastoo amaantiyo erayada kalgacal urugiya xanuun kaygu reebtay adiguna ogsoonaw aad baa u mahadsantahay haystaas waa daawanay waxaan kaloo rabay tour ayaa waxaa ku timid North America muxuu ku saabsanaa tourka kale tourkan ma aha kii ugu horeeyay yani waa kii ugu horeeyay in Mareykanka imaado laakiin kii sanadkii hore Australia tagay oo Colombo ahaa yani inaan dadkayga barto aan yani meelaha aan weligii hore u tagin aan imaado waan ku faraxsanahay inaan imiday North America because waxaan la kulmay dad aad u fiican dad fanka jecel dad martigelinta ku fiican aadaaban ugu mahadcelinayaa dhammaan dadweynihii soo dhaweeyay ninka hadda isbabar dhigto tourkaaga hore Australia iyo kan North America aad ku timid North America meel badan baa tagtay Ohio tagtay Denver baa tagtay California tagtay Chicago tagtay meesha maqlab waxa leeyahay nimca joogta marka maxay ku kala duwan yihiin يعني كي أستراليا يكون يعني كل ما أوران كرو وحساس كل دوين because تذكر أستراليا يذكر نورث أمريكا با
labaduba waxay ii soo dhaweyn si aan inaba caadi ahayn marka yacni waa dad aan maanta aan aad iyo aad ugu mahad celinayo oo aan si fiican u bartay waana gurigeygii meel kastoon tagaanay haddaan usoo noqono gobolkan Minnesota gaar ahaan magaalada Minneapolis hadda muddaad joogtay waxyaabihii kugu cajiib badnaa aad ku aragtay maxaa ka mid ah waxyaabo igu yaabka badan aan ku arkay waxaa igu yaab badnaa maalintii igu yaabka badneed waxay ahayd 4 bishii 7 maalintii aan baadhiga ka dhigay xaggan maalinimadeedii ayaa anoo dariiqa maraya waxaan arkay inan yaroo 3 jir ah oo heestayda qaadaysa 3 sano heestayda qaadaysa dareen ay galay haye marka waa la yaabtay waan la yaabay because she's too young laakiin I was very happy aad baan ugu maalintaasi markaad stadiumka aad timi heestaasi intaad garoonka aad soo gelinba dadku waxay ku hayeen marka ma isleedahay North America heestaasi si aad u qancisay masha Allah hees kale aan soo qabano heestan booli bal iga waran yaa alif heestaas heestu waa hees jacayl ah haye waa hees yani say dadku u jecel yihiin I can't imagine anigu aad baan u jeclahay waa hees dareen ku jiro dareenka ku jira maxaa ka mid ah heestu waa hees yani ninka booli cunaya bankitaab babacaada midig baa allaha ku jaray inuu baahan yahay u baxaar ku jira waa midaan u bixin basoo isku bogay base waxaa ka daran bog jacayl fadhiyey jacaylka fadhiyey nimco heesaha horaan u sheegay jacaylka marka ma isleedahay dee gabdhihii iyo raggii oo dhan way soo daadanayaan heestaada markay maqlaanba waadsantahay marka heestani booli haddaad fiiriso markaad stageka aad ka qaadayso habeenkii waxaan ogaa 4 July dadka noogu celi adiga ahaan markaasi maxaad fiil garaynaysaa sababta keentay inay dadku heestaasi aad iyo aad u codsadaan meelaad taabanaysaa waa yani you pushing the right button yani erayada heesta ku jira ayaa qof kasta oo yani dareen yar ku jiray taabanaya